Gabalayinta dollar ee Afghanistan. Waa aaga ay ku wada sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska. Waa afaafka hore ee aaga dagaal ee Afghanistan. Saldhig laga abaabulo dagaalada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee ka dagaalama Afghanistan. Waxaa ku dhex yaala goobtan qaybo badan ee ay ka mid tahay maqaaxiyo cisbitaallo, guryo ay degan yihiin askarta mishinada fuliya ee sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka iyo Ingiriiska. Waa saldhigga kaliya ee dunida ee la geliyay balaayiinta dollar, taas oo aan marna kala go' ahayn sahayda militariga gaarka u tababaran ee loogu carbiyay fulinta mishinada. Waa saldhigga ugu weyn dunida kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Waa magaalo dhan ee ay degan yihiin askarta sida gaarka ah u tababaran. Waana goob awaamirta howlgallada laga soo fuliyo. Waxaad moodaa in Mareykanka iyo Ingiriiska arrin qura in ay kulmisay, laakiin adigu maxay kula tahay? Waxaan ahay Cabdiqaadir Maxamed, soo saaraha barnaamijkani kooban ee ka warramaya aaga balaayiinta dollar ee Afghanistan, taas oo lagu fuliyo howlgallada gaarka ah ee ka dhanka ah kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Afghanistan. Miyaanu la isodhan karayn waa aaga ugu weyn ee uu bariga dhexe ka degan yahay Mareykanka. Saldhiggan waa midka ugu weyn dunida. Saddex boqol oo askar ayaa toddobaadkiiba mar la bedelaya. Dhammaan sahayda militariga iyo saanadiisa ayaa dhinaca badda ee dalka Afghanistan laga soo geliyaa. Maxay tahay sababaha militariga gaarka u tababaran ee Mareykanka uu xarumo ciidan uga sameysanayo dalalka ay daashatay dhibaatooyinka colaadda ee dunida, kuwaas oo ay u badan yihiin kuwa Islaamka? Soomaaliya waxa ay qayb ka tahay wadamada uu Mareykanka saldhigga ku leeyahay, iyada oo uu muddo dhowr iyo 20 sanadood uu wacad ku maray inaanay Soomaaliya marna dawlad ka dhalan oo aynaan cagaheeda isu taagin. 28,000 wax kor u dhaafaya oo askar ayaa ku nool goobtani. 4,230 waa shaqaalaha dhismaha ee saldhiggan. Waa goob ay dhex yaalaan 3,080 oo ah hubka culculus ee mishinariga iyo gawaadhida militariga.
waxa ay leedahay gegid ay ciidamadu ka soo degtaan 50 diyaaradood ee nooca qumaatiga u kaca ayaa dhex yaalla 1206 teendhooyin ayaa ka dhex dhisan xerada. iyo 30 sanadood waa goob laga abaabulay weeraro lagu qaaday koonfurta Ireland, Ciraaq iyo Afghanistan. maalintiiba waxaa ka soo degta 6,000 oo duulimaadyo. waa June sanadkuna waa 2014. idaacad gaar ah ayaa ka dhex shaqaynaysa aagga militariga ee Afghanistan. waa gelinka hore ee iridka lama ogola in shakhsi hub fudud wata uu u gudbo xitaa askarta. hubka fudfudud sida mindiyaha iyo agabka kale ee la qabto ayaa dib loo farsameeyaa iyaga oo laga soo saarayo kuwa cusub kuwaas oo ay militariga ku dagaal tagaan. sidoo kale halkan waa goob ay ka shaqaynayaan dadka u dhashay dadka Afghanistan, laakiin Taliban-tuna waxa ay taariikh ku leedahay in ay soo dhaxgalaan saldhigyada isbahaysi. Popcorn machine ayaa burburiyay rasaasta taariikhdoodu dhacday iyada oo karinaysa biraha rasaasta ilaa ay ka dhalaalaan. 5 tan oo naxaas ah ayaa toddobaadkiiba la sii iibgeeyaa. dhammaan agabka military ayaa dib u dayactir loogu qaadaa UK. 2012 askarta Taliban ee ku labisnaa dirayska militariga gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa dagaal jidgooyn ah ku qaaday askar cusub ee markaasi lagu soo daabulayay aagga xerada. dagaalka ayaa qaatay 3 saacadood oo toos ah waxaana ku naf waayay 2 ka mid ah askarta Mareykanka. xerada waxaa hareeraheeda ku yaala 36 dhismayaal aad u sareeya kuwaas oo laga ilaaliyo xerada. 98 rag ee u tababaran shiishka ayaa saaran dhismayaasha iyada oo ay barbar socdaan askar 200 ah ee ku dagaalamaya qoryaha machineryga culculus. qataraha ugu weyn ee ay la kulmaan ayuu askarigani ku sheegay inay tahay gabaadhida isqarxintooda. horjoogayaasha Taliban ayaa caruurta yaryari ee Afghanistan u adeegsanaya jawaasiis. maalintiiba 50 askari ayaa la badbedelaa ee ah ilaalada shiishka ee dhismayaasha sare ee xerada. dokumentarigan kooban halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. qaybta playlistiga ee dokumentariyada ayaad kala socon kartaa macluumaadyada cusub ee aan ku soo kordhino. ku mahadsanid inaad ka mid tahay daawadayaashanada. la wadaag saaxiibadaada si ay uga mid noqdaan ku tixanayaasha barnaamijyada aynu halkan soo gelino. waxaan ahay Cabduqaadir Maxamed. waxaan idinku dhaafayaa inta ka horeyso nabadgelyo.